kulanti macna wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada maanta iyo sheeko kale. Maanta waxaynu ka sheekaynaynaa maxaa ka taqaan hurdada maroodiga ima sida uu seexdo. maroodiga qaaradda Afrika wuxuu seexdaa saacado kooban marka loo eego xayawaanada kale ee duurjoogta ah si lagu ogaaday cilmi baaris cusub. saynisyahano baaritaan ku sameeyay laba maroodi oo ku nool Botswana si ay wax badan uga ogaadaan sida dabiiciga ah ee maroodigu u hurdo. maroodigu waxa uu seexdaa 3 ilaa 6 saacadood, balse sida dabiiciga ah waxa uu hurdaa 2 saacadood sida lagu ogaaday baaritaanka. maroodigu mararka qaar waxa uu soo jeedaa dhowr maalmood. xilliyada aysan seexan waxay u socdaan masaafo aad u dheer, waxaana suuragal ah inay markaas ka qaxayaan xayawaanka ugaartada ah sida libaaxa. Prof Ball oo ah maamulaha jaamacad ku taala Koonfurta Afrika waxa uu sheegay in hurdada noocaas ah ee maroodigu ay tahay arrin u gaar ah. ninkani waxa uu yidhi maroodigu waa xayawaanka ugu hurdada yar xayawaanada, taasina waxay u muuqataa inay sabab u tahay jirkiisa oo aad u weyn. sidoo kale waxa uu yidhi waxaan ogaanay in maroodigu uu riyoodo 3 ilaa 4 maalin kasta, taasina waxa ay siinaysaa maskax aad u xasuus badan oo lagu magacaabo aragtidii su'aalaha, waxayna la falgashaa xasuusada wanaagsan sida uu sheegay. sidoo kale maroodiga lagu hayo meelaha gaarka ah ayaa la baaray si wax badan looga ogaado. midka ku nool kaymaha waaweyn ayaa cilmibaaraha iyo kooxdiisa waxa ay ku xidhan maroodiga qalab lagula soconayo hurdadiisa. qalabkaas waxaa la geliyay dhoosha maroodiga gudaheeda, waxayna sheegaysaa xilli kasta waxyaabaha ku saabsan hurdadiisa. labadan maroodi ee baaritaanka ugu weyn lagu sameeyay waxaa la daba socday 5 isbuuc, waxaana laga ogaaday fikrado cusub oo la xiriira hurdadooda. xayawaanada yaryar waxay hurdaan saacado aad u badan. tusaale, xayawaanaadka aad u yar ee aan dhaqaaqi karin waxa ay hurdaan 14 saacadood halka bini'aadamku uu hurdo 8 saacadood. sida maroodigu uu ku badbaado isagoo aan hurdin 2 saacadood oo kaliya weli lama ogaanin sida saynisyahanadu sheegeen. saynisyahanadu waxa ay sheegeen in hadda ay baari doonaan maroodiyaal aad u badan oo ka mid yihiin kuwa labka ah. haddaba daawade, haddii ay tahay markii ay kugu horraysay ee channelkan, subscribe dheh oo ka mid noqo asxaabta ku xiran baggeena, kanana socda sheekooyinka khaaska ah ee aan uga hadalno xayawaanada, annagoo maalin walba idiin soo geli doona muuqaal cusub. waa ku mahadsantihiin haddii muuqaalka like aad saartaan, maxaa yeelay faa'iido weyn ayay u tahay muuqaalka. waa noo berri iyo muuqaal kale.